shirkan sida la wada ogsoon yahay waa shirkii toddobaadlaha lagu qiimeynayay shaqada boolisku ay u hayaan bulshadooda isla mar ahaantaa markii lagu qiimeeyo laba arrimood baa lagu kala saaraa qorshayaashii yaalay shaqo in la qabta ay ahayd toddobaadkii la soo dhaafay wixii ka qabsoomay iyo wixii aan qabsoomin markii labada la kala xaqiijiyo la kala garto ayaa haddana waxa la isweydiiyaa waxyaabaha qabsoomi waayay sababtay u qabsoomi waayeen iyo wixii caqabad ku noqday shaqadii gudaheeda isla mar ahaantaa markii la isla taabto qodobadaas ayaa kadib haddana direction waxa laga bixiyaa la isla tilmaamaa la isla qaadaa dhigaa la isla gorfeeyaa habkii toddobaadka dambe loo sixi lahaa shaqada wixii qabsoomi waayay iyo toddobaadka dambe shaqadii qorshaysnayd gebi ahaanba sidii loo qaban lahaa ee bulshada adeeg qanciya loo siin lahaa isu geeyo waxa weeye maadaama ay saaka macal xooggii deegaanka ama ciidankii gaarka ahaa ay ka soo qayb galeen sidaa dee aad wada ogsoonnahay waxa weeye doorashadii baan ku guda jirnaa deegaanka maadaama ay dalka intiisa kale ay hore uga dhacday innaga iyo goobo kale oo kooban doorashadii baan ku guda jirnaa sidaan ognahay marka doorashadu habsame u socodka iyo asluubta iyo anshaxeedu siya nabadgelyadeedu mid ay qurux badan oo wanaagsan si ay u noqdaan waxaan samaynay isku xidh ciidanka qaybihiisa kala duwan saraakiisha hogaamisa dhammaan 20 qabale in ay ka qayb galaan inay ka howlgalaan meel kasta oo ay joogaan ciidanku inay ka howlgalaan gobolladii bay noqotaa degmooyinkii bay noqotaa meel kasta saas la isugu xidhay marka xarunta iyadana waxaan isugu xidhnay ciidankii dhammaan ku sugnaa gudaha caasimadda in ay si midaysan qabalayaasha uga wada howlgalaan marka qabalayaasha saraakiisha aad arkaysa saaka zaidka ku ahayd shirkii caadiga ahaa waa saraakiishii 20 qabale lagu qoray ama booliska madhabayaha boolis ha noqoto armaa bitana ha noqoto ciidanka xoogga gaarka ha noqoto saraakiishii iyadoo isku dhafan oo midaysan baa 20 qabale lagu qoray oo lagu dhaadhiciyay si ay macnaha ay meel walba ay bulshada iyo booliska isugu xidhaan habsame u socodka doorashada si ay mid taabagala oo habkii loogu talagalay sharaf iyo karaamo leh oo taariikhi ah si ay ugu dhacdo habkaasay u howlgaleen marka waxa zaidka ku ahaa galab saaka aad ka arkaysay hawshaas ay ahayd isu wada geeyo gabi ahaan waxa weeye shaqadan waxa looga gol leeyahay ama qiimeyntan ujeedadeedu ay tahay sharcigii burburay ee dhulka la dhigay shalay ay weli xubno tira yari ay rabaan inay dhulka la sii dhacaan in ayna toodii hirgelina sharciga sarreyntii sharcigu ay dhidibada aasato mid tallaabsato oo dhaqaaqda in laga dhigo ayay ujeeddada shirkani daaran tahay ama dulucda shirkani ay tahay ujeeddadiisa ugu weyn waa sarreynta sharciga in kor loo qaado adeegii loogu talagalayna bulshada lagu siiyo si ay u hesho damaanad sharci bulshadiina laga dhigo mid iyada lafteedii ilaalisa sarreynta sharciga